Barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi Deeqsame ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta gobolka Gabiley yeelanayso kadib markii hore uu dumay dhismihii hore ee xaruntaas. Waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay dhismaha xafiiska gobolkani Gabiley. Barasaabka Xamse Maxamed Cabdi Deeqsame waxaana hadaladiisii kamid ahaa. Kan waxaynu u nimay inaynu dhagax dhigno xafiiska cusub ee gobolku uu yeelan doono dhismaha xafiiskan oo ay bixisay deeqdiisa hay'adda la yiraahdo TIS Plus oo ayna fulin doonto shirkadda dhismaha ee la yiraahdo Midco wuxuu noqon doonaa xafiis si casri ah loo dhisay oo waxa weeyaan insha Allah biidnillaahi baari loo qalabeeyay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa shirkadda TIS Plus ee waxa weeyaan mashruucan fulisay dhaqaalaha ku baxaya oo gaaray lacag aad u badan waxa ay bixisay hay'adda USAID wuxuu bilaabmi doonaa maanta waa inuu halkan taagan inuu dhagax dhignay waxaanu ku wadnaa inuu ku dhamaado uu yaraan muddo 6 bilood hadii Ilaahay raali uu ka noqdo cid kasta oo waxa weeyaan ka soo qayb qaadatay dhismaha xafiiskan haday tahay TIS Plus USAID Netco maamulka gobolka dhamaantood waan u mahadnaqaynaa sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay injineerka gacanta ku haya dhismaha xafiiskan iyo qaar ka mid ah isku duwayaasha laamaha kala duwan ee gobolka hawshan waa gurigii xafiisyada loo dhisay gobolka Gabiley gurigan oo ka kooban qolal badan iyo guriyo gaar oo shaqaalaha dhismihiisu waa dhismaha ugu adag ee dalka laga sameeyo waa shub kor iyo hoosba si guri hore meesha ka dumay si aanu dhismahana u dumin waxay soo dhisaan gareysay hay'addu dhismaha ugu adag dhismo la dhiso oo reinforced concrete oo ka soo bilaabmay dhulka hoostiisa 2 mitir dhulka korkiisana uu ka cayay 4 mitir marka hawshaasi ay shirkadeeduna qaban doontaa hadda la ka dhigo maantana dhagax dhig ay noo sameynayaan gudoomiyaha gobolka iyo madaxii hay'adda TIS Plus. My first time in Gabiley and it has taken us a bit too long to start the project but there is a saying we have that good things come to those who wait. So the governor has been very patient and the community has been patient. TIS Plus has taken its time, but now we are here. We're having a very strong partnership with the government. We have a strong partner to develop the building and to produce. Dhismihii xafiiska gobolka Gabiley oo runtii dhismo aad iyo aad u bilic badana waxa dhammaan isugu yimid labadii qaybood ee shirkaddii dhisay ee Netco iyo hay'adda daqda bixinayay marka hore waxaan testi waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay'adda TIS Group inaysa daqdan ugu deeqdeen dhismaha gobolka Barasaabka USAID waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa shirkadda dhismaha sameynaysa shirkadda hore dhismaha sameysay wadaadkiisana dhismihii u baabay waxaan rajeynayaa inuu dhismaha noqdo mid ka wanaagsan kaasi oo adag oo in badan sii jiri doona insha Allah Farxaan Abdi Ciise shabakadda wararka ee Qodaal News Gabiley.